السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولاashii nafsaada doon maanta waxaan jecelahay inaan kala hadlo waxa loo yaqaano fursocodka naftaada in aad hore u wado ama hore u riixdo waa wax daruuri ah oo haddii aysan taas dhicinna dib u dhac ku dhacay sababtoo ah bini aadanku marna hore u socdaan marna gadaal bay u socdaan marna meeshooday joogaan macnaha markay waxaan ka wadaa hadda fiiri cimrigaaga oo kale da'daada haddaad fiiriso 10 sano ka hor saad ahayd maanta ma tihi waa garantii haddaad jirkaaga fiiriso haddaad fiiriso maxaa la wejigaaga haddaad fiiriso maxaa la yiraahdaa shaybka waxay rabtaa noqoto 10 sano ka hor saad u ekayd maanta uma ekid haddii aad shalay tima lahayd maanta bidaar baad leedahay haddaad nin tahay gabdhuhu bidaar ma yeeshaan haddii 10 sano ka hor aad caato ahayd oo qof salii maarta u dhuuban ahayd maanta waad cayilan tahay haddii aad ama ugu yaraan calal aqalli isbedel baa kugu yimid si kasta isku dadaasho haddaad macnaha waxaad arkaysaa naftu qofka bini aadanka jirkiisu siduu isku bedelayo ayay ruuxdiisuna isku bedelaysaa wuxuu sida jirkiisu isku bedelayo ayuu caqligiisu isku bedelaya sida jirkiisu isku bedelayo ayuu isku bedelayaa garaadkiisa iyo fahamkiisa siduu jirkiisu isku bedelayo ayay wax walba isku bedelayaan wax kasta oo kugu saabsan hadday aqoon tahay hadday cilmi tahay macnaha hadday aqoon tahay hadday tahay caqli hadday tahay wax qabad hadday tahay da hadday tahay maaragtay hora u soconaysa ama gadaal u soconaysa okay marka da'da marna gadaal uma socon karto da'du hore uma soconaysa okay so da'da ma iyada ma ku jirto waxa gadaal u soconaya da'du mar walba hore u soconaysa laakiin caqligu gadaal buu socon karaa macnaha garaadka gadaal buu socon karaya fikirka fiican gadaal buu socon karaya cilmigaad inuu naaquso gadaal buu socon karaya ama hore u socon karaya ama gadaal buu socon karaya laakiin da'da waa waxa kaliya la hubo in hore lagu soconayso oo iyadu aysan gadaal u noqonaynin laakiin maxaa samayn kartaa da'da gadaal uma celin kartid laakiin waxaad samayn kartaa 10 years younger ma maqasheen macnaha waxaan ka wadaa 10 years younger waxaad samayn kartaa in aad naftaada ka shaqayso jimicsi hadday tahay caafimaad cunno fiican cunto hadday tahay waad isxajin karaysaa laakiin da'da marnaba ma hakin karaysa laakiin waxaad samayn kartaa inaad naftaada ku dadaasho oo hore u kaxayso subax 30 daqiiqo jimicsi haddaad samayso haddaad wigii mar 2-3 waxaad awood jiimka tagto maxaa la cunno wanaagsan cunto iska daysa burka iyo saliidii sokorta waxyaalahaas hore waad maarata naftaada waa laga yaabaa 10 sano ka hor say u ekayd inayna maaj jirkaaga us isbedelina ka wada jir ahaan laakiin maskaxda haddaadan maalin kasta hore u riixayn maalin kasta aadan buug positive akrinayn maalin kasta haddaadan hore u siqaynin waxaa garantii ah inay gadaal u soconayso caqligaagu naaqusayo waxaa jiray qiso buugga aan ku akhriyey maxaa la yidhahdaa buugo kalena englishna ku arkay qiso u dhow laakiin buugga dhabar adayg ibrahim waa beri qoray waxaan ku arkay qiso aad u cajiibahay 3 nin 3 nin saaxiib bay ahaayeen noloshu iskaga mid bay ahaayeen wax walba iskaga mid bay ahaayeen 3 nin marka saaxiibka ahaa wax walba iskaga midka ahaa 3 nin baa midba wada qaaday mid wuxuu qaaday wada ah inuu balwad bartay inuu saaxiibo xunxun bartay inuu gadaal u socday marka gadaal u socdo bilaabay ninkaas ninkii kalena wuxuu sameeyey in uu ma aragtay hor socod jimicsi yar buu sameeyaa markuu shaqada ka yimaado waxyaalo yar buu sameeyaa buug buu 10 page buu akhriyaa hor socod buu kaasna bilaabay midna horena uma socon gadaalna uma socon bartiisii buu taagan yahay maxaa dhacday nimankii 3 sano maxaa la yiri 30 iyo hadaan khaldanayn 31 month ad 30 bilood kadib maxaa dhacday 30 bilood waa muddo fiican 30 bilood kadib maxaa dhacday labadii nin in absolutely ay aad u kala duwanaadeen maxaa kala kaxeeyey waa ninna gadaal buu u socday oo saaxiibo xunxun iyo balwad iyo qurun buu bartay midna hore u socdayo buug akhris iyo horumar iyo inuu wax akhriyo iyo inuu hore u siqo iyo maalin walba jimicsigiisa sameeyo inuu midna hore u aaday midna gadaal buu aaday kuna shaqadiisiibu ku kala lahaa subaxii habeenkii buu ka soo noqdaa waa seexdaa waa cunaa waa cabaa asaga waxna uma siyaadin waxna kama naaqusin bini aadanka saad og tahay marna waxbaa ku socda maxaa bini aadanka waa garantii waxa kaliya oo la hubaa waxaa la yiraahdaa waa isbedelku waa la hubaa in uu dhacayo ama hore macnaha gadaal ku aad u socotid ama hore u socotid laakiin isbedel baa maalin walba kugu dhacaya marka isbedelka maanta kugu dhacaya xagee kaaga dhacaya jirku kaaga dhacaya ma maskaxdu kaaga dhacaya ma caqligu kaaga dhacaya ma garaadka macnaha fikirka
horu socodka xageebu kaaga dhacaya maanta isbedelkaaga guys insha allah messagekaygu waxa weeyaan hadduuba isbedel kugu dhacayo wuuba kugu dhacaya waa la hubaayo mid horu socod leh ha noqdo isbedelkaaga ha noqdo mid aad hore u sigdo ha noqdo mid aad maanta naftaada wax yar hore ugu qaado buugii akrisayaa iyo maxaa lee wax you know just do something oo hore kuu kaxayn kara in haddaad macnaha aad for example qof waxaa miisaan lahoo kale jimicsigii bilow hore u soco isriix waxaa ku saacidi kara in aad waxa aada rabto wax kugu dhiirageliya inaad dhegaysato in aad ku xirnaato qof waxa aad rabto inaad gaadho asagoo gacanta ku haya inaad la xiriidho inaad la socoto inaad ka warqabto in aad tahay qof ma aragtay horu socod leh inaad noqoto odan gadaal u socdo marka insha allah maanta messagekii wuxuu yahay naftaada ka hormari shaqadaada naftaada ka hormari businesskaada naftaada ka hormari macnaha cid kale wuxuu qaban lahay naftaada ka hormari cid walba allah subxaanahu watacaala aan ahay ka hormari sababta mataqaanaa haddii adigu aad naftaada aad hormarin weydo oo cid kale ku mashquulsho horumariskeeda ama shaqada horumariskeeda maalinka caafimaad dara kugu dhacdo ama aad maaragtay adigii aad dib u dhac badan oo kugu yimaado waxba uma qaban karaysid faamilkaagii waxba uma qaban karaysid qoyskaagii waxba uma qaban karaysid ma aragtay dadka kugu xeernaa cidaad rabtay inaad wax u qabato waxa aad doonaysa inaad qabatid ma qaban karaysid haddaada naftaada horumarin ka si aad adigu u horumarto naftaada ku mashquul xageed ka bilaabaysaa marka qof walba dee situationkiisa ku kala duwan tahay waqtiyada ku kala duwan yihiin you know laakiin qof walba waxba u shaqeeyo qofka inta badan dadka bini aadanka ah waxaa u shaqeeya oo ma aragtay ugu boqolkiiba boqol aan dhihi karnaa waxyaalaha ugu faa'iido ugu badan waa subixii aalasay inta bini aadanka jiifo inta bini aadanka jiifo inaad soo kacdo inaad jimicsigaaga samaysato inaad waxaad akrinaysa akhriso haddaad buug qoranaysa aad qorato haddaad maaragtay mahadnaqsi wax alla iyo wixii ku saabsan cilmiga naftaada anfacaya iyo caqliga naftaada anfacaya iyo garaadka iyo jimicsiga wax kasta oo naftaada anfacaya waxaa la qabsadaa bini aadanka kale jiifaan ilmuhu intaysa kugu soo kacin haddaad ahaba ahayd intaadan shaqada u dheelman haddaad hooyo ahayd intaadan awlaadii iyo maaragta waxbarashada iyo howlahaada kala aadan gelin taasaa lagu mashquuliya dadka garaadkooda koriya 4-5 saacadood ayay bini aadanka intay jiifaan ama ugu yaraan 2 saacadood inta bini aadanka jiifaan ayay ka horkacaan bini aadanku hurdo ayay wax qabsadaan markii iyagu ay fulfil isku sameeyaan oo iyagu isbuuxiyaan oo iyagu isjaajgareeyaan ayay bini aadanku usoo kacaan kale hadday qoys ahayd hadday ilmo ahayd hadduu shaqo u kalahay ahayd hadday business ahayd maalinkaas xilligaas uu asaga jaajgaraysan waxaa layidhi telefoon bateriga ka dhacsan yahay dabcan kuma hadli karaysid okay maalintii oo dhan maadaama aad rabto inaad wax qabato maadaama aad rabto inaad shaqaysato maadaama aad rabto inaad adduunyo qabsato iyo aakhiraba wixii ilaahay kuugu talagalay subaxii waagu markuu baryo oo aad usoo kaliilad adduunka maskaxdaadan jaajgaraysan waxay kaa caawinaysaa in aad adduunkan maanta si easy ah oo deganaan ah aad wax ugu qabsan karayso in aad dadka waxa aad qabanaysid aad ku faraxsanaanaysa qofku waxa la yidhi markuu alasay jimicsiga sameeyo jirkiisa wuu dhididayaa waxaa ka soo baxaya waxyaalo badan caafimaad ahaan dabcan wax badan ay u taraysaa oo hadda ma gelayo laakiin maskaxdiisa dhan way isfurfuraysaa you know you open up waad farxaysaa farxad qofka jimicsiga sameeyo farxadiisu ma dhammaato marka insha allah waxaan rabaa qof kasta oo walaalkii oo messagekan soo gaaro in uu maantay saacadan daqiiqadan aan la hadlayo uu ka bilaabo naftiisa inuu ka hormariyo waxa kale uu qaban lahaa oo u kaadisid waxyaalaha kale oo rabto inaad qabato laakiin naftaada aad aroortii dhiirigelinta jimicsiga waxqabadka wax akhriska isdiyaar garaynta you have to get ready because maalin walba waxaa la yidhahdaa the life is a stone noloshu waa macnaha dhibaata maalin walba taagan weeyaan laakiin taa taagan maxaad kaga baxaysaa inaad adiga isjaaj garayso oo isdiyaar garayso oo isxirxir ya adiga oo dagaal diyaar ah waa inay nolosha kuu timaadaa laakiin adiga oo hurda haddii stoonka kugu soo dhaco khalaas okay marka life waa mar walbaba hoolaa kuu taalo mar walbaba dhib baa kuu yaala mar walbaba dhib iyo dheefba saas isku doomaray 24 saac saacad walbaha waxay wadataa wax hor alla ah oo ama faa'iido kuule ama khasaaro kuule ama daal ama dhib kuule ama dheef kuule
laakiin waxaad ku qaabili kartaa maskax degan oo adiga aad kasoo shaqaysay ood kusoo dadaashay iyo in aad naftaada waqti geliso. Give your time sii naftaada si aad adduunka kale oo kugu soo fool leh aad wax ula qaybsatid insha allahu tacaala. messagekaygu waa horumari naftaada adiga oo ku horumarinaya oo ku hubinaya waxbarashada aqoonta maxaa la jimicsiga maaragtay wax akhriska waxyaalahaas oo dhan ku hubi naftaada si aad marka aad adduunkaas kale iyo maalintaadii caadiga aad qaabisho aadan stress u noqonin oo madaxa ku xanuunin oo u daalin oo dadka ugu xanaaqin. Soomaali arag qof markuu shaqada soo gelayo asagoo caajisan oo halaaqoonayo oo waxa weye asaga dhan jajaban u soo gelaya oo dad u jeedo qofkaas inuu unhappy yahay. qofna wuxuu soo gelaya isagoo faraxsan sideetiin dadkii wuu salaamaya waa happy waa maxaa waa faraxsan yahay very happy because qofkaana waa qof hurdo iska soo jiiday oo iska soo qasbay oo hurdadii asagoo inta iska soo kiciyey xilligii saacadii ay shaqada ka dhimaneed wax yar soo hirrijiyey tacbaan isagoo ay yimid. qofna waa qof inta xilli hore kacay oo hawlihiisii qabsaday oo jimicsaday oo naftiisii ka shaqeeyey oo wuxuu qabsanayo dhan qabsaday 3-4 saacadood naftiisii soo geliyey asagoo happy ah oo faraxsan oo excited ah ayuu shaqadii imaanaya. bini aadamka ma dhibsanayo cid waxa tiraahda ma dhibsanayo. qofkaas waa qof dhiiran oo isku toosan oo nidaamsan. okay marka insha allah naftaada horumari. horumarinta naftu waa muhiim wax walba ood qabanayso naftaada inaad ka horumariso. intaasaan idinkaga tegaya messageku waa horumari naftaada. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.